السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا يا كوكست أو فيديوز كان داونية إن شاء الله بإذن الله. maanta waxaan baran doonaa sidee applicationka kugu jira iyo kood ku shubatay labadaba aad magaca iyo sawirkaba uga bedeli kartaa. waxaanu soo dejisanaynaa application loo yaqaano Quick Short Marker ayaan soo dejisanaynaa. Play Store kan tagaysaa. Play Store markaad tagto xagga sare magaca lagu qoro ayaa ku qoraysaa Quick Short Marker. waxaan xagga sare ugu qoran hoos dhigi maayo. dan waa applicationka kugu sareeya kugu soo hormari doona weeye. dan waad soo dejisanaysaa download. aniga ay ku jiraan install karaysan yahay. marka hadda waxaanu isku daynaa inaan hal iyo laba aan magaca ka bedelno sawirka. waxaad tagaysaa applicationka dul tagaysaa waa kan dul tagaysaa xagga dhexe application isku dhufo ay ku qorantaad ku dhufanaysaa. hadda waxaanu ku bedelayaa sawirka applicationka ma sawirka bedelayaa. waa kan image waa kan sawirka doonaya ku bedelaya ashas saaraya. hadda waxaa la saaraya dan noqonaya create noqonaya. dan wuxuu saaraya shashada sawir saaraya laakiin shashada xaggan kale saaray. waa kan applicationkii aad dhexda lagu dhufto waa applicationkii waxaana ku qoran beauty plus oo qoran laakiin sawirkan ka bedelay mid kale ayaan hadda isku daynaa inaan magaca abna ka bedelno. applicationkii baa ku dhufanaysaa xagga dhexda ku dhufanaysaa application uu qoran yahay. waxaan hadda aan ka bedelaynaa haddana maaragtay calculator-kan ka bedelaynaa magaca ka bedelaynaa. dan waxaan ku qorayaa tusaale waxaad doontaa ku qoranaysaa Cabdulaziz oo qorayaa tusaale okay baan oranaya create baan oranaya. markaa waa ka baxayaa waa kan Cabdulaziz oo qoran waana calculator-kii weeye. marka waxaan jeclahay qof kasta inuu uu fahmay. marka aad baan idin salaamayaa qof kasta oo fiidiyowga daawanaya waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.